ninbaa hadda ka hor go'aansada inuu wax badan ka ogaado dhagarta dumarka si uu arrintaas uga dhabeeyana wuxuu galay safar dheer. In muddo ah markuu socday ayuu arkay islaan waayeel ah oo ceel dul taagan. Inta ceelkii biyo ka cabay ayuu islaantii weydiiyey, eeddo horta sir naageed iyo dhagar dumar waan maqlaye bal wax ma iiga taaban kartaa? Islaantii uma jawaabin, balse waxay bilowday wadaantii ceelka ee biyaha ku jireen inay isku bilbisho kadibna ay qayliso. Ninkii oo aad ula yaabanaa falka ay samaysay islaanta ayaa hal mar ka war helay 4 nin oo dul taagan, kuwaasoo islaanta meesha joogtay dhashay. Markii wiilashii islaanta dhashay goobta yimaadeen ayay ku tiri, ceelkan ayaan ku dhacay, balse alxamdulillaah ninkan ayaa iga soo badbaadiyey. Nimankii ayaa bilaabay inay ninkii uga mahadceliyaan tallaabada uu hooyadood ku badbaadiyey. Intaa kadib islaantii ayaa ninkii inta u soo dhowaatay ku tiri, haddaan ku dhihi lahaa ninkan baa ceelka igu tuuri rabay, naftaada ayaa halkan ku weyn lahayd. Dhagarta dumarkana waa sidan oo kale, erey afkeeda ka soo baxa bay kugu dili kartaa, erey kalena way kugu badbaadin kartaa. Haatanna intan cashar ha kuugu filnaato ee orodoo reerkaaga u laabo.